Markab weyn oo wada qalabka casriga ah ee loogu talagalay in Turkiga uu ku qodo Soomaaliya ceelashooda shidaalka ayaa ku soo xirtay marsada weyn ee Muqdisho, iyadoona arrintaas looga gol leeyahay sidii markabkan uu u soo saari lahaa shidaalka iyo kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya ku dhex jira. Ilo wareedyo kala duwan ayaa warbaahinta Xuraasi waxay u sheegeen in dowladda Soomaaliya ay soo dhaweysay dhammaan tallaabooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada guud ee la xiriira qaabka dowladda Turkiga ay u wado soo saarka shidaalka Soomaaliya, difaaca maraakiibta iyo doomaha shisheeye ay ku doonayaan wadamada qaarkood Carabta ah in ay ku baabi'iyaan hadaf walba oo Soomaalidu ay ka leedahay soo saarka shidaalkaasi, iyo in ay dowladda Turkiga xoogga saarayso qaabkii Soomaaliya ay u tuuri lahayd koobka faqriga ee shidaal la'aanta iyo faa'iidooyinka aan laga faa'iideysan ee dhanka kheyraadkooda dabiiciga. Ilo wareedyo kala duwan ayaa waxay dhanka kale sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu safar degdeg ah ku aadi doono dalka Turkiga, isagoona la soo kulmi doono dhigiisa Erdogan. Waxaa arrintan la sheegay inay ku hoos duugan tahay tababarka loo soo xirayo ciidamo gaar ah oo dowladda Turkiga muddooyinkii u dambeeyay u tababaraysay ilaalinta xeebaha Soomaaliya, iyo in ay la shaqeeyaan dhanka iyo khubarada u dhashay Turkiga ee doonaya in ay bannaanka soo dhigaan kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa marka uu Turkiga tago kadib waxa uu la kulmi doonaa madaxweynaha dalkaas Rajab Tayyip Erdogan, isagoona gacanta u geyn doona casuumaadda martiqaadka Soomaaliya uu ku imaanayo inta aan la gaarin dhammaadka sanadkan 2025 siday xaqiijiyeen ilo wareedyo kala duwan. Warbaahinta Xuraasi ayaa waxa ay indhayn ku sameysay warbixinada iyo maqaalada lagu qoray warbaahinta sida gaarka uga faaloota Turkiga arrimaha dhanka dhaqaalaha, kuwaas oo bilaabay in si guud iyo si gaar ahaaneedba ay u dabagalaan kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliya ku jira, taas oo muddooyinkii u dambeeyay Ankara ay ka shaqeynaysay qaabka ugu fudud ee loo soo saari karo shidaalka Soomaaliya. Wararka ayaa intaa ku sii daraya in mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dhanka iyo dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ay ka wada shaqeynayaan qaabka loo gaari karo hadafka ama ujeedka ugu weyn ee la xiriira in la soo saaro shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga, taas oo keentay in Ankara iyo Muqdisho ay markaan xoogga saarayaan qaabka ugu fudud ee loo soo gaari karo ama loo soo saari karo macaadinta faraha badan ee dhex cegaagta dhanka Soomaaliya, oo haddii laga faa'iideysto noqon karta fursad weyn oo Soomaaliya u soo hoyatay. Adeega adag ee dhanka dowladdu ay la timid ee dhanka dhaqaalaha ayaa yimid kadib markii khubaro u dhashay dalka Turkiga la talin joogtaha ay siiyeen wasaaradda maaliyadda iyo xubnaha kale ee dhanka dhaqaalaha Soomaaliya ka shaqeeya, taas oo keentay in la soo dedejiyo cunaqabateyntii hubka, deyntii Soomaaliya lagu lahayd oo laga cafiyey, iyo in dhaqaalo fara badan Soomaalida dhexdeeda ay ka samaysato, iyadoo meel la iska dhigayo arrimaha muranka ama khilaafaadka dhanka siyaasiga oo si guud iyo si gaar ahaaneedba Soomaalida xubnahooda xilalka haya iyo kuwaan haynba ay ugu shaqeynayaan qaabka ugu fudud ee loo soo saari karo shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ee Soomaaliya ku dhex jira, sida ay sheegeen ilo wareedyadaasi. Waxaa wararka soo baxaya ay tilmaamayaan in mas'uuliyiin ka tirsan Ankara ay markaan raadinayaan xogaha guud ee ku aadan qaabka loo soo saari karo shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ee Soomaaliya ku jira, iyadoona dayax gacmeedkii hawada loo tuurayay ee dhanka Soomaaliya laga ridayo saldhigiisana la saldhigayo, iyo qodobo kale oo muhiim u ah Soomaaliya iyo Turkiga, kuwaas oo lagu sheegay in lagu muujinayo cilaaqaadka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga. Calanka la saari doono ee Soomaaliya iyo kan Turkiga ayaa la sheegay in dayax gacmeedka qaybta sare loo adeegsan doono, taas oo mar qura ka dhigi doonta Soomaaliya inay ku biirtay dalalka dayax gacmeedka hawada sare u diray, iyadoo taasi ay muujinayso dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo midda guud ee Soomaaliya ay dhanka dibadda istiraatiijiyad ahaan ay wado, iyadoo marka laga eego arrimaha guud ee la xiriira horumarka iyo dadaalada kala duwan ee Soomaalidu ay wadaan ay yihiin kuwa muujinaya xaddiga guud ee dhanka siyaasadda, sida ay sheegeen ilo wareedyo ka tirsan dhanka iyo dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga oo arrimahan si dhow uga warqaba. Warbaahinta Xuraasi ayaa waxay isha soo marisay warbixinadii ugu dambeeyay ee lagu daabacay warbaahinta Turkiga, gaar ahaan kuwa sida gaarka uga faalooda arrimaha dhanka Afrika,
kheyraadkeeda dabiiciga iyo wadamada cilaaqaadka dhow kala dhexeeya Ankara, iyadoona bogagga sare lagu qoray xiriirka Muqdisho iyo Ankara ee sii xoogeysanaya, dhaqaalaha dhanka Soomaaliya oo sare u sii kacaya, iyo in fursado kala duwan xilligan Soomaaliya ay haysato. Wixii warar iyo dhacdooyin arrimahan ka soo kordha baahinteena tan xigtay warbaahinta Xuraansi ku daawo. Waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka ku xirnaanta janalka iyaga.